madaxweynaha dowladda Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo xariga ka jaray wajiga kowabad mashruuca biyo galinta birqod gunagado ayaa waxa mashruucan ka faa'iideysan kara 22500 qof iyo waliba 165 oo neef xoolaha mashruucan oo qiyaastii 5 kiiloomitir kastaba ku leh goobo darka xoolaha iyo waliba goobaha dadku ka cabaan ayaa waxa uu yahay mid si casri ah oo heer sare loo dhisay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo la hadlay shacabka markuu xariga ka jaray mashruucan ayaa sheegay in xukuumadda farxad balaaran u tahay inay aragto mashruuci miisaaniyada badan ay ku baxday oo shacabku ay ka faa'iideysanayaan hadda waxaan taaganahay oo xaqiijinay biyihii laga soo jiiday birqod in laga cabeeyo gunagado taa macnaheedu waxa weeyaan wax la yaab maaha hadda koorna waa mashaariic ka dhaadheer oo ilaa 100 kiiloomitir isticmaalaya kuwa 200 kiiloomitir laga soo jiiday waa la isticmaalaya kan hadda waa birqod ilaa halkan markii jiijitaanka lagu daro ama leexadka ilaa 50 kiiloomitir uu noqonaya inta dhulku soo maray iyo qaabku u leexanayo laakiin kuwa ilaa 150 kiiloomitir oo hadda laga cabeeyo kuwa 200 kiiloomitir la soo jiido laga cabeeyna way jiraan geesuda shacabka degmada gunagado oo dareenkooda ka hadlaya waxay sheegeen in aad ugu faraxsan yihiin adeeg bixinta mashruuca biyo galinta birqod gunagado ee uu xariga ka jaray madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar isla markaana ay ilaashan doonaan mashruucan oo biyaha looga jiido degmada birqod oo tuumbooyinka dhulka hoostiisa la galiyay ayaa waftigu indheendheeyay goobaha kala duwan ay ku yaalaan kaydka biyaha iyo waliba goobaha sii maraan biyuhu sida qabalaha kurtag dheere goobaha mashruucan uu sii maro qaloocan ay ka mid tahay ayaa waxa yaala kayd biyaha uu qaadi kara 75 mitir kiyoob gobley oo uu ku yaalo reservoir qaadi kara 300 mitir kiyoob kurtag dheere oo 100 mitir kiyoob iyo waliba gunagado oo yaalo reservoir qaadi kara 300 mitir kiyoob wajiga koowaad ee mashruucan oo kamid ah mashruuca biyo galinta birqod gunagada marsan gaashaamo danood oo masaafo dheer dhulka hoostiisa tuumbooyin la gelinayo ayaa waxa dhismihiisa gacanta ku haysa shirkadda hawlaha dhismaha biyaha deegaanka inta kadib waftiga uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxay booqdeen maashinka macaaniinaya ceelkii biyihiisu dhanaanadeen ee gunagado iyadoo maashinkan uu yahay mashiinkii ugu horeeyay dalka Itoobiya lagu macaaneeyo biyaha dhanaanada isla markaana xukuumaddu ay ka soo iibisay dalka dibadiisa